Waxaan idiin soo gudbinayaa qiso kale oo xiiso badan, taasi oo aan rajeynayo wax badan inay ka faa'iidi doonaan saaxiibada ku xidhan barteeda YouTube-ka. Mar walbana qisooyinka aan soo gudbino waxay iskugu jiraan qisooyin cibro qaadasho mudan. Qisada maanta idiin soo gudbinayo waa qiso wiil yar oo diinta aad u bari jiray ku dhacday xabad tufaax ah ayuu beer ka cunay, kadibna maxaa ku dhacay? Waxaa ka daawanaysiin barta YouTube-ka ee Socdaal 24. qisadana sidaan ayay ku bilaabanaysaa. Waxaa jira wiil yar oo diinta Islaamka aad u bari jiray. Maalin ayuu gaajooday asagoo jooga gurigiisa. Markii gaajada uu adkaysan waayay ayuu soo baxay. Kadib waxa uu isku dayay inuu raadiyo wax uu gaajadan iskaga baabi'iyo. Wiilkii markii guriga uu ka soo baxay ayuu arkay beer aad u qurux badan. Kadib beertii ayuu ka goostay xabad tufaax ah. Markii xabaddii tufaaxa beerta uu ka goostay oo cuno oo dhammaystay ayuu gurigii ku soo noqday. Wiilkii waa uu fakeray, su'aalo badan ayuuna isweydiiyey. Xabaddii tufaaxa uu cunay waxa uu ogaaday ninkii beerta iska lahaa inuusan idinka weydiisan ay xaaraan tahay. Wiilkii dhowr maalin ayuu isku dayay inuu raadiyo ninkii beerta iska lahaa. Muddo badan ayuu raadinayay si uu ugu xalaaleeyo xabadda tufaaxa ah oo cunay, cafisna uu ka dalbado. Wiilkii yaraa oo ahaa wiil aqli badan ayaa ninkii beerta iska lahaa waa uu raadiyey, kadibna waa uu helay. Maxaa dhici doono maadaama xabad tufaaxa beerta uu ka cunay? Wiilkii iyo odaygii xoogaa markii ay sheekaysteen, wiilkii ninkii beerta iska lahaa waxa uu ka dalbaday cafis. Odaygii waa uu diiday, kadibna waa uu ka dhaqaaqay. Wiilkii lugaha ayuu qabsaday. Muddo ayuu daba socday asagoo cafis ka dalbanayo. Odaygii maya ayuu dhahay, gurigiisii ayuu iska galay. Wiilkii go'aan ma uusan qaadan oo guriga ayuu fadhiyay ilaa salaadii casir kadib. Sida uu sugayay, odaygii salaada casir kadib ayuu soo baxay. Salaadii casir kadib markuu soo baxay, wiilkii sidoo kale ayuu haddana u baryay, isaga oo mar walba raadinayay in xabaddii tufaaxa ahayd laga cafiyo. Odaygii ayaa markaas dhahay, shuruud ayaan kugu xirayaa. Shuruuddaas haddii aad ka soo baxdid waan ku saamaxayaa, waana ku cafinayaa. Wiilkii aad ayuu u farxay uuna dhoola caddeeyay. Wiilkii ayaa dhahay, maxay tahay shuruuddii? Odaygii ayaa waxa uu dhahay, anigu gabar ayaan dhalay, dhaga ma lahan, indhana ma lahan, lugana ma lahan. Wiilkii aad ayuu u naxay, ama kaag ayay ku noqotay. Wax uu sheegay ayuu aqoon waayay. Odaygiina waxa uu dhahay, shuruuddaas haddii aad ka soo baxdid ayaan ku cafinayaa, gabadhaas ayaana kuu guurinayaa. Wiilkii waa uu iska baxay, waxaana la ballamiyay maalin Khamiis ah. Daawadaha daawanayo Socdaal 24, haddii ay kugu dhici lahayd gabar aan dhaga lahayn, indhana lahayn, lugana lahayn, maxaad samee lahayd? Waa laguu guurinayaa haddii lagu dhaho. Wiilkii waa uu fakeray. Guriga ayuu tegay. Ilaah ayuuna tala saartay. Wax uu sameeyo ayuuna aqoon waayay. Wiilkii nafsadiisa waxa uu ka dhaadhiciyay waxuu Ilaahay qoro maahane wax kale inaysan dunidan ka dhici karin. Wiilkii maalinkii ballanka ahayd ee Khamiista ayuu imaaday halkii ay ku ballameen. Markii uu imaaday wiilkii, odaygii ayay is arkeen. Diyaar ma u tahay ayaa lahay. Haa, diyaar ayaan u ahay ayuu dhahay. Wiilkii waa uu cabsanayaa, qalbigiisana wax kale ayaa ku jiro, laakiin qalbigiisu wuxuu ku xiray Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuuna tala saartay. Wiilkii odaygii waa ay soo dhaqaaqeen. Guriga ayay imaadeen. Gabadhiina waa lagu meheriyey. Odaygii ayaa waxa uu dhahay, gabadhii waxay ku jirtaa kushiinkaas ee u tag. Gabadhii kushiinka markuu u galo waxa uu arkay gabar lixdeedii lixaad leh oo xuural cayn ah oo aad u qurux badan. Wiilkii waa uu farxay. Mar kalena Allah ayuu u mahad celiyey. Markaas ayay dhahday, saaxiibkaygii oo soo dhawaaw.
Markaas ayuu dhahay, aabbahaa muxuu beenta iigu sheegay? Markaas ayay gabadhii dhahday, anigu aabbahey been kuuma sheegin oo runta ayuu kuu sheegay ayay dhahday. oo muxuu runta iigu sheegay ayay dhahday ayuu wiilkii dhahay. Markaas ayay gabadhii dhahday, anigu waa indho la'ahay oo indhahaygu wax xun ma arkaan, oo waan dhego la'ahay oo dhegahaygu wax xun ma maqlaan, oo waan lugo go'anahay ayay dhahday oo lugahaygu meel xun uma socdaan oo ma raadsadaan. Wiilkii aad ayuu u farxay, mar kale ayuu Allah u mahadceliyay, waxa uuna dhahay, maanta waxaan helay xaaskayga xalaasha ahayd. Qisadan waxaan ka baranaynaa in mararka qaar nasiibkaada meel wanaagsan uu kaa soo geli karo. Wax walba oo aad doonaysana iyo wax walba oo dunida rajo ka leedahay, mar walba tusaalooyinkan oo kale ay kugu dhici karaan. Qisadan waxaan ka baranaynaa in go'aano si fudud aan loo qaadi karin, go'aano si degdeg aan loogu degdegi karin. Kaasi oo ah, xabad tufaax ayuu qaatay, noloshiisina wax ka sarreysa ayuu helay, wiilkiina waa laga cafiyay. Waxaad ka daawanayseen barta YouTube-ka Socdaal 24. Socodsiiyuhu anigoo ah Mahad Sheekh Abuukar Mahad Socdaal. Intaan ku kulmi doono qiso noocan oo kale ah. Nabadgelyo.